Haweeney ayaa markasta waxay aadi jirtay guriga saaxiibadeed, iyaduna way u imaan jirtay. Ninkeedii ayaa dhibsaday. Markasta uu shaqada ka yimaado, wuxuu arkaa saaxiibadeed oo la joogta ama iyada oo guriga ka maqan. Wuxuu isku dayay inuu kala hadlo, laakiin waxay ugu jawaabtay, "Waa gabadha keliya ee saaxiibka ila ah, marka haddii aan aado ama ay ii timaado maxaa ku jaban?" Odaygii waxaa ka dhammaaday dulqaadkii. Wuu fikiray, wuxuuna gaaray go'aan. Maalin ayuu isagoo ka yimid safar gaaban, wuxuu soo galay guriga. Wuxuu u yeeray xaaskiisii, wuxuuna ku yidhi, "Bacdan adigaa iska leh. Waxaan kuu soo gaday dhar iyo kabo. Bacdan kalena waxaa ku jira dhar qaali ah iyo dahab. Waa hadiyad aan u soo iibiyey gabadhii saaxiibadaada ahayd." Xaaskii waxay ku dhufatay qaylo, "Ma heerkaas ayaad la maraysaa? Waa maxay hadiyadda qaaliga ah ee aad u soo iibisay naagta? Malaha hoos bay kula soo xiriiri jirtay. Waa haddii ay gurigayga mar dambe timaado iyo wixii la mida," ayay tiri. Saaxiibteedii oo warmooga ayaa guriga soo gashay, waxayna haweeneydii xaaska ahayd ka orgeysay buuq iyo dagaal. Waxayna ku tiri, "Haddii aad gurigayga mar dambe timaado, wallaahi wixii kugu dhaca adiga ayaa mas'uul ka ah, aniguna weligay kuu iman maayo." Gabadhii saaxiibteeda ahayd, iyada oo yaaban ayay guriga orod uga baxday. Haweeneydiina markaa wixii ka dambeeyay socod dambe may samayn. Odaygiina gadaal buu ka qoslayay. Sheekada labaad waa qiso ka dhacday dalka Sacuudiga. Nin Sacuudiyaan ayaa xaaskiisa u kaxeeyay nin sheekh ah si uu ugu akhriyo Qur'aanka Kariimka, kadib markii uu ka shakiyay inuu jin ku jiro. Sheekhii markii uu akhriyay Qur'aankii ayaa jinkii ka dhex hadlay gabadhii, wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay inuu baxo, laakiin hal shuruud ha la ii oggolaado ayuu yidhi. Ninkii gabadha qaba ayaa diiday oo wuxuu yidhi, "Shuruud la'aan baad ka baxaysaa xaaskayga." Jinkii ayaa yidhi, "Bal horta dhagaysta shuruudda aan wato." Sheekhii ayaa ku yidhi jinkii, "Waa maxay shuruudda aad wadato?" Jinkii ayaa ku jawaabay, "Waan ka soo baxayaa gabadha oo ninkeeda ayaan gelayaa." Ninkii isagoo argagaxsan ayuu ka booday kursigii uu fadhiyey, naxdin darteed. Sheekhii ayaa ku yidhi, "Maya." Jinnigii ayaa yidhi, "Ma garanaysaa sababta aan u gelayo?" Sheekhii ayaa yidhi, "Noo sheeg." Jinnigii ayaa ku jawaabay, "Waayo ma tukada ninku, waa taariku salaad." Sheekhii ayaa weydiiyey, kadibna ninkii ayaa diiday oo dafiray. Sheekhii ayaa jinnigii ku yidhi, "Dhagayso, hadda ka bax gabadha oo gurigooda meel u dhow joog. Hadduu tukan waayo, gal." Jinnigiina waa uu oggolaaday. Muddo ka bacdi ayaa xaaskii wacday si ay ugu mahadcelisay sheekhii, wuxuuna ka waraystay xaaladda ninkeeda. Waxayna ku tiri, "Hadda ninkaygu furaha masjidka isaga ayaa haya, oo salaad walba isaga ayaa dadka ugu horreeya masjidka." Sheekhii intuu qoslay ayuu dadkii agtiisa jooga ku yidhi, "Wanaag faridda iyo reebista xumaantuba xigmad bay u baahan yihiin." Gabadhu waxay doonaysay si ninkeedu u tukado, wax jinni ah iyo wax ku jirana ma jirin. Si ninkeedu uu u noqdo ahlu salaad ayay rabtay. Dumarku qiyaamooyinkooda badan, hadday xagga khayrka u adeegsadaanna wax badan bay soo kordhin lahaayeen. Hadda ciyaartu waa bareejo, waa 1-1. Waxaan rajeynayaa inaad saaxiibayaal ka hesheen. Aragtidaada inoo reeb, labada sheeko midee aad kaaga qoslisay. Muuqaalkan si ay saaxiibada kale uga bogtaan una gaaro walaalo sidaadoo kale u qalbi wanaagsan, inoo sheer gareeya.